golaha guurtida Somaliland ayaa ka hadlay dhibaatada haysata cisbitaalada gobolada bariga Somaliland gaar ahaan cisbitaalka Burco iyo wixii ka sheeya waxa sidaasi golaha guurtida dhexdeeda ka sheegay Axmed Dirir Cali oo kamid ah mudanayaasha golaha guurtida Somaliland waxaanu faahfaahin ka bixiyay lacago hore loogu daray miisaaniyadda isla markaana aan waxba laga qabanin xildhibaanka oo qodobadaasi kala duwan faahfaahinaya ayaa waxa uu yiri gobolka Togdheer waxa ku yaala cisbitaal weyn waxa loogu talagalay inuu noqdo referral ama ka loo soo hirto ee gobolada kale waxa laga qaban karo waa in la keeno مثلا wuxuu u yahay xarun yahay saddexda gobol ee bariga Togdheer Sool iyo Sanaag cisbitaalka waxa qalab ma yaalin CT scan ma yaalo MRI ma yaalo حتى waxa la yiri x-ray ma shaqeynay waxa jirtay mar hore to waxa ma yahay 2018 baa heedo manaya ya $300,000 loo dhigay miisaan lagu daray lacagtii waa la baxay cisbitaalkii waxa la geeyay wax meera kale u ururiyo qashina ya container lagu guray sidii bay container ugu jiraan waayo haddii ay shaqeynay wax tarayaan dee wala soo saar lahaa wixii loo baahan yahay dee meel lagu hayo containerkii uu sidii ugu jiraa lagama xisaabtamin ma garanayo lacagtaas sida loo baxay ma garanayo cidda la baxday ma garanayo cidda qandaraaska lagu siiyay alaabtaasi ma garanayo cidda ka jeegaraysay arrintaas waxay leedahay xisaabtankeeda waxaanay u taallaa golayaasha labada gole u taallaa inay waajibkooda qabsadaan waa ma shaqadu maaha inay shiraan koorka buuxiyaan oo dabada doodaan waxa weeyaan waxa jira in hoos loo eega dhinaca kale gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Salebaan Maxamuud Adan ayaa halkaasi qodobo canaan uga soo jeediyay xildhibaanada golaha guurtida kuwaasi oo sheegay inay ka gaabiyaan arrimaha ku saabsan dooda arrimaha bulshada iyo xaaladaha kala duwan ee dalka waxa uu guud ahaan sheegay xildhibaanada golaha guurtida Somaliland in yar oo farakutirisan ay ka qayb qaataan dooda isla markaana tilmaamaan xaaladaha guud ahaan Somaliland ka jira balse inta kale ay noqdeen kuwa afka xidhay waxaana uu gudoomiyuhu arrintaas ku tilmaamay mid aan suurtagal ahayn Somaliland aanay idinka yeeli karin waana kan gudoomiyaha oo la hadlaya xildhibaanada golaha guurtida camuun weeyi ilaahay naga qabooj sirkii arrimaha gudoona malaa dhinacaas u jira isagoo ducaynaya waa maqlayo warayaala halla joogsadaa haya marka bal ilaahay taana hay naga qaboojo واسيدي وياي قالوا واحد مدة إنان ما يشغل بسودي أرجروبيني لكن قالوا ما هذا الكاكا حدمي وهذا الذي كما حدمينه لو الرباس قرية لو كاسونا اسمه بدله قالوا هذا كوي طونين لبيه طونين با يا هضلون كو انتينا بلا انتينا واداش ده كان نسيه كان نسيو ور قرن كوينغا سيسن مايو دمايو nimankii waana isu yimaadeen waxaadalina kama soo baxaa yaa maxaan sheega arka joogunbaa canaanta ku dhacaysaa ay maqal gaadhsiiya dee waxaad tidhaahaa دور يصد وين باكو فردان امثال عمرو كوبيو تضوي صد باكو فردان تضوي صد كمان هذا الكلام بلبي سيدته كانوا كهلين
marka waxaynu yeelaynaa aynu isku dayno inaynu noolahay dee inaynu jirno kow ninka la yidhaaho naasir dee hala kala aado gobolladaad moodaa haddii dee aynu halkan waxba ka qaban weyno gobollada aanu kala diro nin waliba wuxuunu u tegi doonaa meeshii uu markii hore golaha ka soo galay isagaana iskaynaya isagaana issoo celinaya markaa bal aan isku dayno inaynu wixii aynu qabno dee sheegno cuduraa jira dagaalaa jira kuwo dalal kale baynu hadda gallay oo dagaallo inagula jira abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus